السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقنين waxaan u digaynaa bulshada ku nool magaalada Muqdisho. waxaan kaga digaynaa khataro ku soo wajahan waxa ka soo baxsaday barta lagu xanaaneyn jiray laba dhurwaa ama waraabe saa u taqaaneen. runtii waraabaha markuu soo baxsaday wuxuu xalay dhibaato u geystay intii lagu raad joogay ilaa ay haddana gacanta laguma dhigin. wuxuu dhibaato u geystay laba nin oo ka soo baxay salaada subax, waliba dhaawac culus ayuu u geystay. marka waxaan idin leenahay reer Muqdisho qaasatan hadeer wuxuu dhibaatada ka geystay xaafada Yaaqshiid ama degmada Yaaqshiid. runtii cid walbo oo xiliyada dambe socon jirta ama xiliyada dhowba ama xaafadaha madowga ku badan yahay degan ama meelaha bulshada ku yar tahay degan, waxaan idin la socodsiinaynaa in aad digtoonaataan. runtii caruurahana ala celiyo kubadda iyo meelaha ka imaanaya ama iska socsoconaya mala yacni hala celiyo. wadanka ama magaalada Muqdisho waxaa ku jira laba dhurwaa oo waliba in badan shabaqa ku jiray oo cabursanaa oo meel lagu hayay. hadeerna waxay heleen free ficilkooda ugu horeysay xalay ay ku dhaqaaqeen, waxayna dhaawaceen laba nin oo salaada subax ka soo baxay, waliba dhaawac culus ah ay u geysteen. hadeerna waxay yaalaan isbitaalada waaweyn ee Muqdisho. marka waxaan idin leenahay isku tashta, is ilaaliya, ilaaha wax ilaaliyo, socodka iska yareeya habeenadii iyo maalintiiba. waa inaad caruurtiina ilaashataan. caruurtan dibadda iska soo dhigaysaan maahan, waa inaad ilaalisaan caruurta, waa inaad ka digtoonataan, waa inaad inta badan ka fikirtaan. teeda labaad, albaabada hala hubiyo xiritaankooda, waayo inuu iska soo galo ayuu wax dhibaato u geysan karaa. albaabada hala hubiyo, halees ilaaliyo, wax walba halala socdo. min fadlan isku tashada, is ilaaliya. awalba magaalada habeenkii socodkeeda aad ay ugu xumaa, waayo waxaa bilowday moobeeladii in layska dhaco, nafsiyanna qofka la dhaawaco ama la dilaba. marka haddana waxaa ku soo darsantay khatarada xayawaanaadkan. runtii aniga ilama khaldana xayawaanaad in meel lagu xanaaneeyo oo dadka dalxiis u tagaan, laakiin waxaa ila qaldan inkastoo amarka qoran yahay ee xayawaanaadka si sahal ku soo baxsadaan. hadeer dhaawacan ay geysteen. runtii kolayba waxaa mas-uulka ah meesha xayawaanaadka lagu xanaaneynayo ciddii haysay oo mas-uuliyadda ka ahayd. laakiin waxaa ka sii daran dhibaatada hadda uu geysan doono oo dabagalkeeda lagu jiro. ilaahay dadka xaafido, laakiin digtoonow hala galo. min fadlan is ilaaliya. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa, waayo qof aan hadda maanta mobile haysanin, gacanta ku haynin ma jiro. cid kastana youtube-kaas way soo gashaa. walaalkaaga u sheergareey, aan war ka haynin, idaacaddana ka maqlin, u sheergareey, fadhigiisa ugu geey, ajiraad ka helaysaa. waxaad ka mid noqonaysaa ama sabab noqonaysaa nafaf badan inay khatarka ka badbaadaan. fadlan ku dadaal walaalkaaga inaad fadhigiisa ugu geysid, u sheergaraysid, anagana aad nagu dhiirgelisid sheertaas. howsha aan qabanayno maahan mid gooni ah ama mid danteena oo keliya ku xiran tahay, waxaa ku jirta danta dadweynaha oo dhan. min fadlan nin walba fadhigiisa lagu geeyo. arrintaas halista ah ayaa ku soo korortay magaalada Muqdisho. hadeer xalay wuxuu dhibaato ka geystay degmada Yaaqshiid. runtii inuu hareeraheeda ku jiro iyo inuu degmooyin kale u soo gudbay, waxaan waa xayawaan meel walba ayuu isku jari karaa, daqiiqadna ka dhigi karaa. min fadlan hala digtoonaado, halisku badnaado, caruuraha bannaanka laga celiyo, albaabada hala hubiyo. waa inaad iska ilaalisaan. xayawaankaas halistiis aad ay u badan tahay, dhibaatadiis way badan tahay. waa xayawaan in muddo cabursanaa. xayawaankan markuu in badan cabursan yahay markii oo waqti badan uu haysto isku mid maahan. xayawaankan waqti badan ayuu cabursanaa oo meel ku xirnaa. hadeer wuxuu haystaa free. waxaa laga yaabaa arigan iyo xoolahan iska socsocda magaalada inuu ku bilaabo dhiigga kulul, kadibna dadweynaha ugu gudbaa laga yaabaa haddii aan degdeg wax loogu qabanin. dowladda iyo maamulka qaabilsan iyo dadka uu ka soo baxsadayba waxaan anaga u sheegaynaa in ummadda khatartaas ay ka qabtaan. ilaahay ha idinku guuleeyo, hala qabto baalkaas, ummadda laga qabto. waa khatar, waa dhibaato. waana aragtaan dhibaatada uu geystay. rabaayo wuxuu ku ahaa meesha uu ku xirnaa. dhurwaaga maahan sidii libaaxa iyo shabeelka oo kale dadka loo soo daynayo oo madaxa ay u salaaxayaan. waa ka adag yahay, wuxuu ku xiran yahay
meel in lagu xiro ayuu mar walba lagu xanaanayaa marka khatartiisa badan min fadlan u sheergareeya gaarsiiya walaalihiina ku gaarsiiya fadhigooda ku gaarsiiya si ay khatarkan ugu badbaadaan iskuna ilaaliyaan ilaaha wax ilaaliya marka ku dadaala inaad fadhigooda ugu gaarsiisaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu